asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saaxiibadeeda qaaliga ahow, halkani waa xusuusaye. maanta waxaan idinkaga sheekayn doonaa qisooyin qalbiga taabanaya oo ku saabsan jacaylka dhabta ah. jacaylku ma ahan keliya erayo afka laga yidhaahdo ee waa ficil, nafhurnimo iyo inaad naftaada ka hormariso raaligelinta rasuulkeen, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. bal aan eegno tusaalaha ugu weyn. abubakar asidiiq radiallaahu canhu maalintii maka la furtay, balila qiyaas muuqaalkan. abubakar wuxuu keenay aabbihiisa abuuqaxaafa oo ahaa oday waayeel ah oo hindhala si uu ugu soo islaamo nebiga nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee hortiisa. markuu arkay nebiga nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee si naxariis iyo xushmad leh buu u yidhi, maxaad odayga guriga ugu dayn weyday? aniga ayaa u tegi lahaaye. laakiin abubakar wuxuu ku jawaabay si edab iyo jacayl ku jiro, adiga ayaa xaqu leh rasuulkii allow in laguu yimaado. haddaba markuu aabbihiisa islaamay, dadku waxay filayeen inuu abubakar farxo, laakiin wuu ooyey. dadkii ayaa la yaabay oo ku yidhi, maanta waa maalintii farxadda, aabbahana naarta ayuu ku badbaaday, ee maxaad la ooynaysaa? halkan ayuu abubakar radiallaahu canhu ku yidhi hadalkiisa taariikhda galay ee muujinayay heerka jacaylkiisa. wallaahi waxaan jeclaan lahaa inuu maanta qofka gacantaada qabanayo uu ahaan lahaa adeerka abutaalib, halka uu aabbahay ka aan lahaa, sababtoo ah islaamka adeerka ayaa adiga kaaga farxad badnaan lahaa islaamka aabbahay. bal eega, farxaddii nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ayuu ka doortay farxaddii aabbihiis iyo naftiisa. haddaba jacaylkan kuma koobnin abubakar radiallaahu canhu keliya, xitaa saxaabigii thawbaan radiallaahu canhu markii uu maalin keliya ka maqnaado nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee muuqaalkiisa ayaa isbeddeli jiray, jidhkiisuna wuu daciifi jiray murugo darteeda. markuu nebigii nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee weydiiyey maalin sababta, wuxuu ku jawaabay hadal aad u qiimo badan, rasuulkii allow, xanuun ima hayo, laakiin markaan xusuusto darajadaada sare ee jannada iyo aniga meeshaan ku jiro, waxaan ka welwelay inaan ku waayo oo aan halkaas kugu arag. waan kuu xiisay anigoo adduunka jooga, sidee buu ahaan doono aakhiro? markaas ayay soo degtay aayadda u bishaaraynaysay isaga iyo qof kasta oo jecel nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. qof kasta oo Alle iyo rasuulkiisa adeeca wuxuu aakhiro la jirayaa kuwa Alle u nimceeyey oo ah nebiyada, kuwa rallowyaasha ah, shuhadada iyo kuwa suuban, kuwaasna waa wehelka ugu wanaagsan. xitaa dagaalka dhexdiisa jacaylku wuu joogay. sawaad ibnu khusay radiallaahu canhu maalintii badar nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ahaatee ayaa safka toosinayey isagoo sita ul yar. usha ayaa si kama ah caloosha uga taabtay sawaad markii uu safka soo dhaafay. sawaad wuxuu yidhi, waad ii xanuujisay rasuulkii allow, ee aan kuu qisaasto oo aan kaa argoosto. nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee oo ah macallinka cadaaladda iyo tawaaduca, calooshiisa sharafta leh ayuu u fayday sawaad si uu xaqiisa u qaato. laakiin sawaad ma uusan arsan ee uu ku booday caloosha nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee ayuu dhankaday isagoo leh, rasuulkii allow, waxaad aragtaa in geeridu dhowdahay, waxaana jeclaysay in ficilkaygu ugu dambeeyey adduunka uu noqdo in jidhkaygu uu taabto jidhkaaga sharafta badan. wuxuu qisaaska u isticmaalay marmarsiiyo si uu u helo iskuduubni sagootin ah. haddaba jacaylka iyo xiisaha loo qabo nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee kuma koobneen bini'aadamka oo keliya. geedkii qalalnaa ee masjidka dhex yaallay miyaad xasuusataan sidii uu u ooyey markii nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee uu ka tegey oo uu mimbarka fuulay? wuxuu u ooyey xiise uu u qabo nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee ilaa uu nebigu soo degay uu laabta geliyey si uu aamuso. wuxuuna yidhi, haddaanan laabta gelin wuu ooyi lahaa ilaa qiyaamaha xiisaha uu ii qabo darteeda. laakiin jacaylkuma hal dhinac buu ahaa. nebigay nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee ma wuxuu ahaa kan keliya ee la jeclaa, mise isaguna sidoo kale wax wuu jeclaa? haddaba maalin maalmaha ka mid ah, rasuulka nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa dhex fadhiyey asxaabtiisa isagoo u sheekaynaya si deggan sidii caadada u ahayd, erayo kooban laakiin macno qoto dheer ku leh
qalbiyadooda. kadib si lama filaan ah wuu aamusay, wejigiisa sharafta leh ayaa isbedelay. aamusnaan ayaa golaha haraysay. markaas ayaa indhihiisa sharafta leh waxaa ka soo burqaday ilimo. wuuna ooyey rasuulkeen nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. ma ahan oohin uu keli ku yahay, mana ahan habeen uu salaada tahajud tukanayo, ee waa oohin timid isagoo asxaabtiisa dhex jooga. saxaabadii welwel ayaa galay, jacayl iyo cabsi ayaa isugu darsamay. markaasay yidhaahdeen, maxaa ka ooyey rasuulkii allow? wuxuu yidhi, nabigeen nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxaan u xiisay walaalahayga. ereygaas wuu ku cusbaa dhagaha saxaabada. saxaabadii ayaa is eegeegay, iyagaa rumeeyey, iyagoo la hijrooday, dhibka la qaatay, dagaalan la galay. miyaysan iyagu ahayn walaalihiis? waxay yidhaahdeen, soo annagu walaalaha ma nihin rasuulkii allow? markaas ayuu nabigeen nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee dhowlacadday naxariis leh, wuxuuna si degan u yidhi, idinku asxaabteyda ayaa tihiin, laakiin walaalahay waa qowm imaan doona gadaashayda oo rimoon doona iyagooni arag. oohintiisu ma ahayn xiise uu u qabo kuwa hareerihiisa jooga, ee waxa uu xiisay dad aanan weli dhalan wakhtigaas, dad ku nool zaman aad u adag, fidno badan, cadaadis badan, shahwaadkooda ay dhow yihiin, haddana doortay iimaanka. dad aanan ku arag nuurkiisa indhahooda, aanan maqlin codkiisa, aanan waddooyinka kula socon, laakiin ay rumeeyeen isagoo ka maqan balse ku dhex nool qalbiyadooda jacayl iyo raacitaan dartiis. sidaas darteed buu nabigeen nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee tuubaa jannada iyo wanaag oo dhan waxaa leh qofkii rumeeya isagoo i arag. tuubaa waa erey kulansaday khayrka oo dhan, waa bishaaro, waa ballanqaad darajo gaar leh. bilqiyaas muuqaalkaas, nabigeen nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo jooga zamankiisa ayuu u xiisoonayaa ummad joogta zaman kale. waxa uu u xiisoonayaa aniga iyo adiga. haddaba su-aashu ma ahan maan jecelnahay rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, ee su-aasha dhabta ah ee u baahan inaan isweydiino waa, haddii maanta camalkeena loo bandhigi lahaa nabigeen nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, ma inoo xiisi lahaa sidii hore, mise wuu inoo ooyi lahaa naxdin iyo murugo darteed? ilaahayow nooma aadan qorin inaan ku aragno rasuulkaaga adduunyada, ee aanoo diidin inaan ku aragno jannada. hana naga fogeyn ilaa aan ka cabno gacantiisa sharafta leh, cabitaan aynan haraad dambe arki doonin. gebagabadii, haddii qalbigaagu uu dareemay jacaylka iyo xiisaas labada dhinac ah, ha dhaafin adiga oon shargareerin qisadan si asxaabtaaduna u dareemaan qiimaha ay agtiisa ku leeyihiin. ilaa aan jannada ku kulanno, nabadgelyo.